سودوين ابنه كسر بيري حسب الوطني لبضاس ويسكت شلا وحينو بلا ميا برنامج كيني وحنو بلا ميا هذا قرآنه وهاي القرآن كانوا أخرية شيخ داك iyo wacdi diiniya oo inoo sheego inoo wixii doona Axmed Wali تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طبعاً يردي يدخل نصه قبقابية حفلة سنوات كان اسم الوطني لانتي سفيدان إنهم هذا نقلنا أي واجب من وقتها كلمتي أي والله هاي قبقابية شو أما تذكر نصه قبقابية حفلة وروح ضلله وحين وصل لويننا قبقابية شميت كم إذا مصعب عبد السلام سيدي هذا كلمتي سيس. ثم الصلاة والسلام على رسول الله. طبعاً ما تشرف تكسر غير الشيخ حفيدن. أعطيتها يوجان كحسبية. أعطيتها يوجان كحسبية. يوحنا كله تاجرياش حسب الوطني. أمانتين وحنا تكسر وين هنا طبعاً أنا وقاضي يا فقط مقابلة. حفلة صدش وينه سنضعها. لا وطن فيلان. حسب الوطني أنا كسر وين يا مرك مرة كمفرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وين. كل محرم عيون حوي أن كسر ويو شركة النوفرو. وحفلة نيس بتردونكا. سعادة هاي سنوات بدور عتبتي حلمة. وأنا متأسف إنكم متشكرين سنة كي هو وحنا نوقف صوي. هي سنة كذا إن شاء الله وحى قشور نوي هاي. iyo sida ay noqon doonto sanadka dambe inaynu noqono iyo inaynu isweydiino maxaa inoo qabsoomay sanadkii hore iyo maxaa si keen bedelay marka kulli waxaan rajeynayaa oo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad sanadkii hore aad iyo aad aynu u shaqaynay dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani ee laanta Finland ayaa aad iyo aad uga muuqatay isbedelka wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba laantana waxa weeyaan laamaha hormuudka ka ah قارة يوروب iyo marka waddanka laga yimaado dibadda marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sida hageerliyada ee aad u shaqayseen intii aad xisbigu u dhisnaa ee aad hiliyo oo la garab taagneedeen insha Allah waxaan rajayn doonaa geedigeeni weli uu socdaa waxaa inoo harsan waxa weeyaan inaynu ku sii iyo caynaanka aynu hanaano insha Allah waxaan rajaynayaa inuu nabad qabnaa oo aan layna xagxagin oo wadaniyiin wadankeena iyo dadkeena wax qabanayna inaynu la wareegno hoggaanka dalka oo maanta uu ka muuqdo dheelitir la'aan aad iyo aad fara badan xisbiga wadana waa xisbiga dheelitiri doona waxa ay dhalinyarada waxa ay mujtamaca reer Somaliland ay maanta tabanayaan hadday tahay beeraha galbeedka iyo hadday tahay barigaba rahantii waxaad moodaa bariyaha dambe wadankii uu guux badan uu ka jiray ruuxaas oo rahantii laga cabanayo maamulka maanta talada haya ee kulmiye cod bay ku keenay markii hore waxa laga caawiyay waxay ahayd dibadda aad looga taageeray rahantii waxaan rajeynayaa mar hore khasaareen dadka dibadda ku nool ee reer Somaliland oo dhaqaalahoodii iyo fikirkoodiiba ay ku bixiyeen xisbi aan dal lahayn midnimada iyo shaqeynka reer Somaliland marka waxaan rajeynayaa markay tahay inay tahay doorkii guusha xisbiga wadani aadna hadhowta kula xisaabtami doontaan insha allahu tacaala sida uu wax u qabto waxaa kaloo maadaama aan dhalinyaro ahay aan halkan ka tacsiinaya oo aan si qiirale weliba uga tacsiinayaa ururkii waxqabadkiisa uu iska yaraa dhalinyarada reer Somaliland ay ku midoobeen oo maanta la kala diray oo loo kala qaybiyey beelo iyo waxaan dan u ahayn dhalinyarada reer Somaliland rahantii intii soo taagtay badaha ku leeyahay
intii ka hadhay haraagooda habaan dugsanayay iyo wax badan ma qabanay laakiin waxaad ogtihiin maanta halku marayo in dhalinyaradii reer somaliland ay laba qaybood u kala fadhido in dad shaksiyaad gaara oo dana gaaragi ay kala kaxeeyeen taana waxaan leeyahay waa nasiib darro weeyaan waxaana ugu horeeyaan iyada dusha u saaraya wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha oo u ahaa wasiirka doorka koowaad ku leh inuu mideeyo isu keeno dhalinyarada reer somaliland kaasoo noqday run ahaantii wasiir dhinac la safan oo xaladkay waayeen isku dhalinyarada reer somaliland run ahaantii mar koowaad iyo mar labaadba waan idin mahadnaqayaa waxaan idinku mahadnaqayaa xafladeennina way inoo furan tahay insha allahu raxmaan waxaan rajayn doonaa inaynu guruur ku gaari doono sanadkiisana inagoo oo wajiyadeena maanta aad bay farxad uga muuqataay farxadda farxad ka weyn ay ka muuqato oo waddanka hoggaankiisa haysta aynu isu iman doona insha allahu tacaala aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa mar koowaad iyo mar labaadba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kole wasiirka ciyaaruhu dee horeba ciyaartooygiiba uu kala saaray reer jiilaal iyo reer wafaaye ugamana fadhino maanta in ururka dhalinyarada inuu sii kala dila maaha isu keene haddana waxaynu kusoo dhaweynaha kaalintii odayada siduu kelmadiisa odaynimo u odhan lahaa oday faarax بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka salaamayaa xafladan rag isugu yimi iyo dumar iyo dhalinyaro waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa ka bacdi waxaan salaamayaa guddida wadani ee sanadka iyo labadaba soo waday ee sidaa sharafta badan leh usoo qaban qaabisay kuwan iyo kuwa horaba cabdiraxmaan axmed haddii alla ka dhigayo ragga la midkaa hablaha marwooyinka rag iyo dumar bale dhalinyarada fircoon waxaan leeyahay waa salaamantiin aada iyo aad baan salaamantiin waan kusoo dhaweyneynaa intaa waxaa ii raaca halkan xadiiskii wadaadku marinayay waxaan leenahay ilaahuna waanfac wuxuu inagala taliyey wixii qaldanaa oo xumaa oo dhan annaguna haddaanu odayaashaynahay waxaanu idinkula talinaynaa wanaagga ilaahay aanu raacna wadooyinkii inoo jeexay ee wanaagsanaa waa qaadanaynaa waayahay waxaad tihahdeen magac wacan baa la baxdeen oo la yidhaahdo wadanigu diintana waa ku wanaagsan yahay shaqadana waa ku wanaagsan yahay magac wanaagsan oo aada u qaaliya magaca xusbiga uu qaatay xusbiyada kalena kusoo dhaweeyo ha aytamina sidaa u wadaan u wada dadka iyo bulshada iyo haddii alla ka dhigay xusbiyada haddii alla ka dhigay ka mucaaradka ee kale idin necab mid kasta idinku walaaleeya bulshada ha kala socina midnimadiina iyo wadaninimadiinu ha muuqata iyadoo cadaanu aragno xusbiyada aad baan idinku soo dhaweynayaa sidaa wanaagsan ee aan noogu yeedheen ee aada noo soo dalbateen waxaanu leenahay intaasina waa naga dardaaran hawshana sidii aa u wadeen ayaanu idinkula wadaynaa annaguna wax taageerayaashana waxaan leeyahay dee nin waliba xusbiga uu taageero waa inuu ka caawiyaa codka lacagta haddii ilaahay ka dhigayo dhaqaalaha inaba waa laydinka baahan yahay intaana waxaan u sheegayaa taageerayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasan kaga baxaya aniga lafteydu kelmad waxaan halkan aan hambaliyo uga soo jeedinayaa guddoomiyaha waqooyiga yurub oo loo magacaabay saaxiibkay waxaan leeyahay oon aqaano wuxuu guda iyo wuxuu galo rashiid kawawa waxaan leeyahay mabruuq waxaan haddana lagu soo dhaweynayaa inuu kelmadiisa yidhaahdo injineer cabdillaahi xaashi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa mahad iskale marka koowaad ilaahay waxaan kaloo mahadnaqayaa kasoo qaybgalayaasha xisbiga wadani xafladan caawa halka inoogu qabsantay ciidanka ilaahay waxaan anigu hadalkayga ku soo koobayaa xisbiga wadani waa xisbi mucaaradkuna waxbuu toosiyaa waxba ma buuqiyo inaynu wax toosino mooye
waxba burburin mayno sharafta iyo karaamada qarannimada Somalilandna inaynu ilaalino innaga waxay nagu tahay yani wax waajibaadka ka mid ah inaynu qarannimadeena ilaalino ay ka mid tahay waxaynu ilaalinaynaa oo kale sharafteena iyo karaamada xisbiga waddanka waxaanu ku soo jirnay muddo dheer halgan baan soo galay urur baan ahayn waa ka soo gudubnay ilaahay waa nagu guuleeyay ilaahay baa lagu shukriyaa marka hore marka wax walba markay ku qabsoomaan ilaahay baa lagu shukriyaa haddana waxaynu u soconaa oo hayaan u nahay 5 bilood inooga harsan tahay doorashada madaxtinimada qaranka Soomaaliland ninbaa geel ceel keenay baa la yiri geel badan ma laha berigii hore geelashu waa badnaayeen dadku lahaayeen markaas war ila waraabiya ninbaa ii soo socday intuu soo gaarayo ila waraabiye geel ninkii baa geel la waraabiyeyo markii si fiican loo waraabiyeyo geeli ma la yiri war ninkii meey markaas uu xal u gash hadda 5 bilood baa inooga hartay madaxtinimadii intaynu qabsan lahayn barbarkay ka baxdaa oo bakayalqeen qof walba oo ku abtirsada xisbiga wadani ama niyad u haya waa inuu la garab istaagaa hiil iyo hoo iyo cod intaba waxaan halkan uga hambalyeynaya oo kusoo dhaweynaya xubnaha anigu hadda wejigooda ma garanayo oo weli layma barin laakiin xubnaha kusoo biiray xisbiga wadani waxaan leeyahay walaalayaal soo dhawaada xisbigu waa xisbigeeni waxaan kaloo leeyahay kolley wax yar baa inoo haray guushana insha allah waa gaari doonaa si niyadsan baynu ku gaaraynaa markaynu gaarnana inaynu ilaahaygii weynaayo waaxid ahaa aynu u mahadnaq celino ayaa inoogu waajiba waxaan hadalkayga uga baxayaa walaalayaal waxaa loo baahan yahay hiil iyo hoo si aynu 5 bilood aynu goolka u dhalino waddankiina waa laynoo ka baahan yahay ciddii tegi kartaa tagto anigu bisha 28 ku qoray diyaaradda bisha 28 insha Allah ilaa bisha 7aadna waa soo joogaya anigu ka rajeynaya idinkuna inaad qaarkiin wixii chance la inay ama awoodi karaba inay soo baxaan oo waddankii ay soo aadaan وأنا ما أنت قرب استغنوا قدوميها حسبي قوضني إنه قرب استغنوا أو صوت صاروا إنه ما ركتي إن شاء الله يعني كتشينيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تانو وحملنا هي هاي حسبي قوضني كلمة دولنا هاي محوية وين يوقف صوتها حلقي لوجو تلاقي لي دور الشطو أنا حبينا ضعفين كاس أياك لما تبادلنا يسدد وينها يدلك Somaliland حتى لو وعلينا قدوميها يبون وايد ما لاحظ حسب قنواتي ما لاحظ الله مو نويل هذا شعب كنويل هذا ماذا هوينه وحا ومدى دقة عدالة دي لو حيكون حرام تيجو حلقة دي لقبته دور الشطة تاسانا كلا بدبادين يسددك تاسانا تينو دقناء وحنا هذا لو كسر لوينه يا xildhibaan hore oo golaha deegaanka xilliyadii hore ahaa haddana ah reer Finland xildhibaan Maxamed fadhi tafadhal معروف ربنا مودينا عليه. هي حلوان ما يلون صح. waxaan halkan ka salaamayaa madaxda xisbiga ay fadhida ururka haweenka dhalinyarada odayaasha dhammaan waxaan salaan ka sheelaabta ka soo goday iga gudooma inta kadib xafladii sanadaha ahayd xisbigu uu lahaa baynu maanta waxaan ku qabsanaynaa alxamdulilah taageerayaal badan oo xisbiga kusoo biiray oo fadhiyaana waa joogaan waxaa halkan aynu ilaahay ka baryaynaa in xisbigeenu uu noqdo kii cadaalad iyo sinaan iyo horumar waddanka u horseeda inuu noqdo ayaynu ka baryaynaa aynu halkan leenahay oo aynu baaq aynu dirayno aynu xukuumaddeena u diraynaa madaxweynaheena u diraynaa
talada hadda haya in doorashadu ay ku dhacdo sidii horeba loo carabaabay waqtigeedii taas oo ah dastuuri taas oo ah dimuqraadiyadda salkeeda ah haddii aanay sidaasi dhicin dimuqraadiyadeena shaki baa ku jira odhan mayno xukuumaddeenu waxba ma qaban xukuumaddeenu waxbay qabatay mucaarad baynu nahay xisbi mucaarado baynu nahay toosin baynu nahay waxaanu leenahay xukuumadda axmed siinaayo waxbaad qabatay annana waxaanu rajaynaynaa waxaad qabatay wax kasii badan inaanu qabano badanaaba mucaaradku waxa ay ku yidhaahdaan dowladdeenu waxba ma qaban dowladdeenu sidan ay tahay dowladdeenu waxbay qabatay madaxweynayaashii kala horreeyey waxbay qabteen ninba waxbuu qabtay nin taa ka qabtay nin dhudhuu qabtay iyo ninba intii uu awoodaya buu qabtay waxbuu qabtay waxbaad qabatay waad mahadsan tahay aada iyo aad baad ugu mahadsan tahay madaxweyne waxaad waddankaaga iyo ummadaada u qabatay waxaanu anana rajaynaynaa haddii aanu nahay mucaaradka waddani haddii aanu kursiga fuulno inaanu anana kasii kordhino oo haddii aad waddooyin dhisnay aanu dekada dhisno oo haddii aad oo haddii aad beriga wax ka qabatay aanu badda wax ka qabano oo haddii ictiraafkii uu weli madmadow ku jiro aanu ictiraafka raadinoo helno ayaanu rajaynaa anaguna waayo qofku wixii uu qabtay waa la sheegaa waa kasii badinayaabaa ka macaan haddii aynu nahay mucaaradka waa in hadafkeenu ahaada war waanu kasii kordhinaynaa waxaasaanu sii qabanaynaa waxaasaanu arrimaha bulshada ka qabanaynaa waxaasaanu ka qabanaynaa waxbarashada caafimaadka waddooyinka horumarka waddanka dhaqaalaha waxaanu joojinaynaa tahriibta iyo leeleelka dhalinyaradu ku jirto balaan baanu u samaynaynaa waa sir xisbi odhan maayo saasaynu yeelaynaa laakiin waxaanu teerigaraynaa haddii alla nala qabto aanu kursiga nimaadno inaanu taa isku dayno inaan dhalinyaro tahriibin insha allahu tacaala oo aanu ictiraafkii aanu halkan dheer u gallo oo waxyaabaha laga faa'iidaysan kareed oo daloolka ee xukuumadda ka muuqda inaynu daboolno ayaynu ugu soconnaa kursiga ee sheeko kale uguma soconno ayaan leeyahay aada iyo aada ba u mahadsan tihiin waktigu waa cidhiidhi wayla tahay badanna waa la fadhiyey dadka doonaya inay xafladda ka hadlaanna way badan yihiin dadku inuu waktiga ilaaliyaa muhiima oo qof waliba inta uu muhiimadiisa kasoo qaato intaas ayaan ku dhaafaya waa idin salaamayaa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo biirtay xisbiga ahaana afhayeenkii xisbiga ucud ee dalka Finland Suldaan Cawl فليتفضل. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وحنا يعاون عبد الله حي ما هي سلطان وضيعي وفريا كارثة وحكر هذه كلية شركة يقرأ. كانت كتبوا مقعد وعاون عبد الله حي مران هاي نافيان حسب قاعد وحنا هامد حيراب كلام تفيلان. كارثة كتبوا وحدوني أولنا السلامو كمان مدحت حسب وطني laanta Finland Jermanka waxaan doonaynaa salaamo garabka haweenka waxaan doonaynaa salaamo dhalinyarada waxaan doonaynaa salaamo haweenka sharafta badan waxaan salaamayaa dhammaan inta madasha ka soo qayb gashay ee sharafta iyo karaamada badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaamka gudbo waxaan ahaa xisbiga wacid waxaan ka shaqaynayay muddada aan ka shaqaynayay waxaan kaga shaqaynayay sharaf iyo karaamo madaxdii aan wada shaqaynay waxaan u hayaa sharaf kuwa ugu sarreeyay iyo xubnaha laanta Finland goobani waan ku wada shaqaynay sharaf baan ku wada shaqaynay maalin hadal xubnaba dhex marin waxaan filayaa in intaan la guuriyo oran doonaan waana salaam iyo halkan haday maqli doonaan waxay u kalifayeen halkan maanta imaado waan ku biiray wadanina waanahay maanta laga bilaabo waxaan ku doortay dareenka siyaasadeed ee Somaliland halka uu maanta marayo kala guurka siyaasadeed ayaa waxaan isiri Soomaalidu waxay tiraahdaa geel weydaartay geedalaande malaabartan baad ka waraabin karaysaa intay taalkaaga inta taagtaada wadani kullu qaabaan isiri saasaan idinku
كتو سياسة حسب وطني ما أنت ما دون أي حكومة أنا وحكينا حسب وطني ما أنت شيء سياسة مكلية قرش مكلية قرش فم مكلية مدون مكلية أنت وجانا أيوه أنا صاحبه وضهنا إنه واحد أرينا نحمد سيران يورني ما جلته وحالا شقين دونا درين كحسب وطني يبغى حسب وطني واحد كي قبل مركز نقاده أيام كهاد دونا ما أنت حكومة وحبورن مايو أسألك قلتني يا أبو سلامتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. odayash garabka haween dhalinyarada wadaadada kulluwan booda salaan aad iyo aad ugu qiimo leh ku salaam anigu waxaan ahay gudoomiyaha garabka haweenka ee xiriirka Yurub garabka haweenka xisbiga Finland gudoomiyihiisina wuu fadhiyaa aad iyo aad baan salaamay taa haddaan ka gudbo horta waa ragwa hadalkii hore niman baa yiri waa sidii ay ka hadleen in baan raacinaya inta aan raacinaya waxay tahay war maanta wayna ku tiga dishay iskaga dhigna xisbigeenu de wuxuu marayaa finalkii marka ciyaaraha la soo ciyaaro sima final waxa la yiraahdaa jira oo de lagu kala badbadiyo kala badintii baynu taaganay taana waxaynu kaga gudbi karnaa inagoo jeebka gacanta gelina inagoo dahabadeena xaraashna inagoo waxaynu haynaba soo dhigno badda intaasaynu kaga gudbi karnaa waad ogtihiin dawladdanayna maanta ku haysano kursiga way naga dhaqaalo badanta waxay ku dagaalamayaan waa dhaqaale xoolahooga iyaga haysta oo dee maanta madaxdiina waa laga haystaa xoolo waana laga xoolo badan yihiin bal isku day inaad maxay tahay la dagaalami kartid rag markuu dagaalamayo dee waynu soo xayxaytaa marka xayxaydashadii baynu ku jirnaaye dumarkow waxaan idin leeyahay waa tii dahab haysay tii jaga yar meel ku ogeyday tii burco laba jaga ku lahayday tii hargeysa ku lahayday tii xoogaa dahaba haysayey hura waa la huri jiray raggana waxaan leeyahay dee maanta way idinkii wax badan idin odhan mayo dee taa rag baa u tihiin laakiin anigu waxaan jecelnahay haddaan dumarka nahay runtii waanu dadaalaynaa waanuna dadaali jirnay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا أصحاب تبيش جوكتا ضمر هوين رج يطني يروى أنت برضه ما وني سلام يا يبناها مملكة قلت ده فيلان إعلانتا وطني. رنهان تانجو أنت أن فيلان يمد وحس بيوم كبير مجرين. وقت كده اللي تشوفينه وحنا قرب كعبد الرحمن وعلي حس بيجو كلمية وحنا كي قاعد حس بيجو كلمية قلت بيكحجين قرب كلامي هذا السومالة وقت كاس. waxaan ahaa guddi qaybtii la gooday ama siyaasadda Soomaaliland uga hadhay waqtiga markii Cabdi Raxmaan oo Cali Kaaray run ahaantii markaan xisbiyada kalendarkooda fiiriyay ama aan eegay rag Soomaaliland beeraale Soomaaliland waa beele heshiiyey oo ku heshiiyey nabad wax qabsi iyo dawlad beeraha ama ummadda waxa deeqa cadaalad run ahaantii dalkood ka warqabtaan هل تسألوا كلية تندتكو سوق هذا سومالان هل بيلو كلية تماها وضد سكوت تجوا نيشن وعن تسيا حسب كوكولمية ونسكوت ريجري بلونا نيجو حسب سومالان كتير أن كلا دورتو كي أن راعي لها يكان تقلا قدو بيا حسب كولمية ما أنت طلع هيا قدو ميو وانن بيل هذا حق ما كان تمام يا قدو ميو كحيانكو وانن بيل هذا حق قدو ميو كحيانك استحاب وانن بيل هذا حق قدومي كحيانك أفراد أيا بيلها عرفيلا قدومي كحيانك الشراب وانين بيلها نحا قدومي كحيانك اللحاد أيا بريق سومالان سلك سوشيلا ربطي عدالة معها سومال مثلا نسبي هيك يسوق عدالة معها أعد سيديسا قدومي كحيانك كواد بيلها نحا قدوميها حسب قوة شيبانك حسب قوة لكن إذا ما كان يكتب حسب وطني ما كان يجي عدالة هان أنا سيدي هالكي عدالة كشفتها أما عندها عدالة هالكي يجي وعن سيد واحد حسب وطني صوتها قدومية حسب وبراها قدومية كحيان الكوات حسب وقلبتك سومالان قدومية كحيان استحاد وبرق سومالان وسيدي يسكو سيدي أن الشركي بورما أن كسوء بابلني وعدالة ونهانتنا وعمر أحسن هاي ما تحس بقوضان هديه وقوليستو قدومي كحيانك كوات
isagaa shaqada qabanaya halka uu ka qabtay maanta muuse bixi maanta shaqada ka qabtay waxaa ka qabanaya nin kasoo jeeda khaasatan gobolka salal kasoo jeeda qabanaya oonan ku hambalyeynaya waxaanan taageerayaa inta nolosheeda ah in uu ku guulaysto xisbiga wadani oon u arkaya cadaalad sababtoo ah run ahaantii waa la isxantaa beelaha galbeedka somaliland waxaa dhibaatooyin fara badan oo maanta ay xisbiga kulmiya abuuray ayaa ka jirta shalay waxaa la qaadaya waa dhalinyartii waa sidii ufo 80kii waqtigii snm aasaasmaysay sidii dadka loo caburinayay ee dhalinyarada loo gurayay ee dadka afkaartooda ka hadla loo caburinayay ee ciidanka la dulgeynayay ayay noqotay run ahaantiina gobolka salal iyo awdal iminka waxaba la geeyey ciidan wixii somaliland uu ahaa taasoo dadka lagu caburinayo waxaan isleeyahay xisbiga ka saari doona caburinta ee dimuqraadiyadda sixi doona ee fikirka ummadda u tixgelin doona wuxuu noqon doonaa xisbiga wadani oon la xisaabtami doono oon isleeyahay waa la xisaabtami karaa qofka aad wax ku darsanaysaa waa inuu ahaadaa qof aad la xisaabtami karto yaanu ahaan qof aan beri la xisaabtami karin maanta wax weeyaan gobollada aan kasoo jeeda gabiley awdal iyo salal waxaa ka dhacay inay odayaasheedii ugu waaweynaa ay intay garnaqsi iyaga oo baryootamaya madaxweynaha ugu yimaadeen weli waxay sugayaan 5 bilood waxaan leeyahay dadka kasoo jeeda gobollada galbeedka gabiley awdal iyo salal war danihiina aad raacanaysaan ama meesha aad la xisaabtami kartaa waa xisbiga wadani ee raaca xisbiga wadani anigana hadda kusoo dheeraanay waan la shaqayn doonaa inta nolosheeda ka dhiman xisbiga wadani waana mahadsantihiin adkaanaya hal mid baan ilaawi oo ah khusaysa xisbigeena wadani qof waliba waa inuu habarta kula jiiraanka iyo odayga kula jiiraanka iyo katagsiga iyo ku kasta oo aad taqaanid wayna somaliland ka dhaadhicsan taasi waa kow waa ina ka dhaadhicsaan oo dambe xisbiga kana nin kasoo jeeda because waxaan mooyaa kulay anigu isma amaanaya laakiin shalay ciyaal badan baa anagu meesha kee ku sameynayna ayay yidhaaheen Soomaaliya meel ahay meel Soomaaliya meel waxaan Soomaaliland halkay ku taala halkaas ay ku taala taariikhda Soomaaliya lagu sheekay marka waxay noqonaysaa ilmaha yare maanta isaguna halkan fiilan ka qaban doona hadduu inoo cudeeyo haddii la doorto Yurub haddii marka la istimarshi waa naga geynay in Soomaaliland la aqoonsado marka qofkii finishka wadanka finishka qofku markuu ku ogayo inaad Soomaaliland tahay haddii codayd soo qaado uu garanayo waxay Soomaaliland tahay وأنا عضين كرا لكن كانوا دايما وقرنا في السومال لان كنت عليها وكيف هايو ما عضين كرا حسبي أنا وكلا بران كرا هدو وروين وقصد مكينا بالك اللي تشوف طب ما شقينا يسوق إلى حل ويلا شقينا سوانا فيش وحيلة الحسبة وقلة وتجوا تجا ده هاي تكتب ما كمان ما شاء الله قف ولا ينقص سعيد في صفات هاي الحين waxaan salaamayaa madaxda xisbiga ee laanta fiilaan waxaan salaamayaa ergooyinka gobolada waxaan salaamayaa madaxda laamaha gobolada taageerayaasha iyo martida sharafta leh waxaanu nahay ergadii gobolka Turku oo ka kooban maamulkii iyo taageerayaashiisiiba waxaanu ku nimid qiyaastii 14 qof waxaa sharaf iyo farxad noo ah inaan idinla soo qayb galno xalfadan quruxda badan xalfad sanadeedkii xisbiga wadani laantiisa Finland sanadka 2015 waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddigii qabanqaabada ee noo soo diyaarisay xalfadan quruxda badan oo aan ka xasuusto Xaliima Deeqa Cabdikariin Mascuud iyo dhammaanba intii kale ay ka qayb qaadatay gacanta geysatay waxaan jeclaan lahaa anigu in ay horta aynu qaybaha hore ee xalfadda aynu iska kamarada dib u dhigano oo aynu inagu isku kaliyeysano maamul iyo taageerayaal oo wixii tusaale tala anaana aynu dhexdeena isniraano si maadaama ay imika kamaradii nagu socoto kole anagu maamul ahaan wixii anaana iyo wixii dardaaranaba waanu dib baanu yar dhigaynaa si fudud baanu idinla hadlaynaa idinkuna haddii aad qaybaha dambe su-aala naga weydiinaysaan maamul ahaan si qurux badan oo ayaan jeclay inaad noo weydiisaan waxay rabaan inay tahriibaan mid maxay maanta iska dagaalamaysaa inay caruurteedii badaha ku dhintaan waxaan waraystay dhiinka istaatigga ee jaamacadda Hargeysa wuxuu ii sheegay ninkaasi oo ahaa asaasayaasha jaamacadda Hargeysa in 170 scholarship jaamacadda Hargeysa oo bilaash scholarshipada waxaa loo soo gudbiyaa wasaaradda waxbarashada wasiiradda waxbarashaduna waxay la timaadaa kuraasta golaha wasiirada
wasiirada marka loo keeno weynogna wasiiradu beeleegsa jiraan hadday wasiiradu kuraasta marka ay qaybsadaan ay beelahoodii ku celinayaan dadkii faqiirka ahaa dee mabaan dhalineenba kuraasta ayaa la siinayaa waxaa la siinayaa niman wax haysta oo aabayaashooda ganacsata yihiin oo 200 baa saddex kun iskool uu yahay semester loo bixin karayo oo jaamacadda ku yimaada gawaadhi cadcad ayaa la siiyaa scholarshipyadii loogu talagalay agoomaha iyo dadkaan waxba haysan dalku halkaas u marata qaybta waxbarashadu Somaliland garan waxaa timi Allahumma salli ala Muhammad qaybta musuqmaasuqa waa ogtihiinoo waxyaabaha dadka ka dhaxeeya ee dalku leeyahay ee resource-ka ah ee macdanta ah ee shidaalka ah oo waxyaabaha ugu waaweyn adduunka ee baarlamaanadu ka doodaan ee bilaha socda ee laga wada hadlo ee la naaqasheeyo kambaniga contract la siinay ma wanaagsan yahay ma fiican yahay muxuu yahay Somaliland sidaan ogahay ilaa 6 kambani oo kuwa shidaalka baadha oo Australia ay leedahay Norway leedahay Turkigu leeyahay Ingiriisku leeyihiin oo niman dilaaliina oo reer Somaliland ay wadanka keenay baa jooga nimankaas waxay dowladda la galeen heshiisiyo macdan baadhisa shidaal baadhisa oo dadka loogu sheekeynayo macdantii iyo nimcada dalka fadhiday baa la soo saaraya baarlamaanka lama soo hordhigin lama naaqashayn waxaa kaloo dalka ka jira waxaa la yidhahda runtaa laga sheegaya shaqalaan baa wadankii ka badata leeyahay dadku way shaqalaayeen dad maxay shaqalaayeen waxa loo shaqalaayay waa Brazilka waa Afrika marka soo qaatay Nigeria iyo South Africa dhaqaalahoodu wuxuu ku gaaray waxay fududeeyeen maalgashiga qof baa imanaya kambani furanaya waxa loo fududeeyay processkii uu marayay waxa laga yareeyay cashuurta laga qaadayay maadaama muwaadiniin shaqaysiinayo wadankiina uu ka duway marka kambani uu dhaqaale tagto adraaw business ma wadan ka sameynaya waxa lagu oranayaa waa saxib maxaa haysa wasiirka Allah iyo garaynaysa wasaaraddiisa u doonatay in lagu ansixiyo business shaagilisan ugu siiyo waxa ka horeysa walba aniga maxay gosh warqaranku hay dambe waxa bariga ka tagayay maxay gosh waxa lagu soo gaaray heer lagu yiraahdo kambaniga shariga si wadankii waxa kan niyad jabay dhalinyaradii maalgashan lahayd hadii noqoto qurba joog iyo hadii noqoto qurba joog oo lagu adkeeyay maalgashigii waxa ay marayay kambaniga kastoo maanta wadankeena yimaado badankooda 60% waxay u badan yihiin kambaniyo heshiis hoose la leh ragga xilka haya tusaale ahaan wasaaradda duulista iyo hawada Maxamed Cabdi Xaashi wuxuu heshiis kula soo galay Ingiriiska niman aan doonayna magacooda magacaabo oo reer Somaliland oo qaarkood ay ka shaqeynayeen qaybaha security ee wadada Manchester Hargeysa leeyihiin kambani baa la diiwaangelinaya kambaniga baarlamaanka loo tigi waxay qofka baxaya $10 oo security ah ha bixiyo baarlamaanku yaasiyo lama sameyn kambani hawsha ku shaqo leh oo sharcigu awood u siiyay lacagta inuu qaado kambani logistiga ahaa oo eerbadka hore u joogay ayaa si hoos ahaan loola heshiiyey wadanka waxa ka socda in dadka wadanka jooga madaxda ka ah ee wasiirada ah ka ugu yaray waa nin master haysta wada PhD holder aqoon aan ma hayso maxaa haya inaanay wadanka ay dan ka lahayn oo ay ujeedadoodu tahay in iyagu si khaas ah u shaqaystaan inuu wax qoranaya wadanka bariga ka tagay xaq laga qaadaya waa inaan ka tagaa anigoo bankiyada lacag taaway bankiga habshiid buu walba ku furaya corporate bankiga telesom buu walba ku furaya corporate bankiga dawladdu waa magaciyaad waxa lagu sheekeynayaa maaliyadii maxaa miisaaniyadda wadanku waxay maraysaa 250 milyan waa ogtihiin budgetka dawladda marka loo soo gudbay baarlamaanka adduunka 10 maalmood baa ugu yaraan laga doodaa budgetku waa inuu ku fariistaa GDP-ga dalka wax soo saar wadanku uu leeyahay ugu yaraan 3% oo cashuurta laga qaadiyay wadankeena saa wax loo baahan marka dawladdu aragto in budgetku minus galayo oo wixii loogu talagalay sanadkan in budgetku ahaado la dhaafayo maxaa la sameeyaa madaxweynuhu lacag badan baa cusub oo la soo daabaco oo si qarsoodiya bankiga loo keeno oo niman Ingiriis ah iyo niman reer Somaliland ay ka shaqeeyaan hawsha lacagtii markay timaado maaha lacag ku fadhida wadanka mucashadii maraysa maxay keenaysaa sixir barar maxay imanaysaa in ganacsatadii ay bariiskii iyo wixii basiga ahayd dadka u baahnaayeen la qaali garayo wasiirkii kama hadlayo maaliyadda ee siyaasadda loo xil saaray ama ganacsiga ka hadli maayo sababta qaali garaysi cuntadii ma aha sabab ka hadli karo wasiirka Ilaahay Xaashi waa ogtii markuu maaliyadda hayay heerku Somaliland gaarsiiyay ogtii runtii marka laga hadlayo madaxweynaha iyo dawladda maanta haysta talada ay kumiyo ma ogolaan in daacada oo Ilaahay ka baqanaya oo doonaya mushaharka
dastuurku siiyey inuu qaato dalkana uu ku qabto waxaa la odhanayaa war siyaasadeedu waa noocan waxaanu rabnaa inaanu waddan ka urursano lacagtanu kaambeynka ku geli lahayn 5 sano waxaan rabnaa siyaasi kasta inaanu iibsano waxaan rabnaa inaan dadka lacag ku furfurano ninkii taa diidana hadaas ku baxaya arrintaas waa gartay 2014 waa ogtii Soomaaliland waxaa ka dhacay xarigii ugu badnaa ee dhalinyarada waxaa ka dhacay xarigii ugu badnaa ee saxaafadda waxaa la xiray 250 suxufi baa la xiray Soomaaliland 2014 oo kaliya sanadkii ka horreeyay waxaa sanadkii la xiray joornaalada la xiray ee cabdi Yuusuf Dawlad maxaa saxaafaddiisa la xiray ee rag badan oo madaxa guryahooda loogu dhacay ee loo isticmaalay ciidankii loogu talagalay argagixisay la dagaalama marka aynu Soomaaliland nahay aynu iibinayno qadiyadda aqoonsiga ee lanahay dimuqraadi weeyaan dalkan dimuqraadigu beeskiisa ku salaysan yahay waxa weeyaan in dadka xuquuqdooda la ilaaliyo xorriyatul qowlka dadku ay xor yihiin inay fikirkooda cabiri karaan wararkii dhalinyarada markay maanta urur samaystaan arrimaha bulshada ka shaqeynaya xaafadooda iyo community-gooda arrimahooda ka shaqeynaya waxaa loo arkayaa urur ka soo horjeeda haddaanu taageersanayn fikirkii dowladda inuu qaranka ka soo horjeedo waa la xidhxidhaya sheelasha Soomaaliland waxaa ku xidhan intaas iyo 100 oo qof oo cadaalad darro ku xidhan oo aan leeyahay qaar baa 8 sano ku xidhan qaar baa 6 sano ku xidhan qaar baa 5 ku xidhan qaar baa lagu ilaaway qaar baa ku waashay markii daryeel iyo cunto ay waayeen Soomaaliland garan waxaa lagu oranayaa budgetka Soomaaliland 50% ama 40% ciidamada la siiyaa lama siiyo waa iska hadal ciidamada madaxweynuhu darajo u qaybiyay madaxweynuhu wuxuu darajo marka uu qaybiyo ciidamada waa kordhinaya waa loo kordhiyay ciidamada mushaharkii 50% waa loo kordhiyay waxay qaadeen markii hore qolka boqol loo dhigay nimanka maanta tiida jooga ee jooga muxuu ahaa laascaano jooga ee buuhooda jooga ciidamada ay halka dagaalamaya waddanka nabadiisa ilaalinaya markay $100 ku qaataan halka ay fadhiyaan dhaxanta ah oo sida ay ku soo gaadhay Ilaahay ogiyay raashinkii loogu talagalay United Nations inuu soo caawiyay nimanaan garanayno ayaa iibsaday wala kala baxay oo dawladda ay juuq oran qofku markuu wixii ka hadlana waa la xirayaa arko hadda ganacsi wado waxa la oranayaa kumaad ina ayaad meeshii waxa lagu ceeshiyaa maanta wajiba lagu ceeshiyaa wasiirku adeerka ma yahay ma ku yaqaanaa isku reermatihiin lacag ma sidataa ma isticmaalaysa laaluush xisbiga wadani wayna ogna waa xisbi dad inagoo kale ay asaaseen oo reer Finland waa xisbi doonaya inuu dadka maanta dabaqadaha u kala qaybsan u simo oo ay dawladdu inoo maamusho khayraadkeena waa ogtii dawladda Soomaaliland xafiisku ma laha boqorna waa ogtii sida looga neceb yahay maxaan cayb keenay shacabkii in lala dulistaago bug lala dulistaago xabad maanta xisbiga wadani xafiisyo ku leeyahay reer buuhooda maanta waxay oranayaan annagu qaranka Soomaaliland ma diidanin ee dawladda kulmiyaa ma diidanin marka waxaan idin sheegayaa haddaynu nahay qurba jooga xisbi kasta waxa caawiya oo meel gaarsiiyo qurba joogiisa waxaan idinku buurinayaa oo idinku wacyigelinayaa inaynu fadhiga ka kacno inuu nin kasta mushaharkiisa iyo lacagta soo gasha uu lacag uga jaro inta xisbiga uu gaarayo halkaynu doonayno isbedel baynu doonaa waddanka inaynu ka samayno waxaynu doonaa waddankan inaynu kaga maarano joogno waddankeeni oo horumar gaadho maanta waddankii wuxuu muuqdaan qaran dabaqad qurbaha ka timiyo lacag haysata nin ganacsi leh inta kale waa zero inta tiifiyadan ka arkayna waa in yaro farqu tirisa Soomaaliland garan marka hadal ku dheeraan maayo waa laga dambeeyaa waxaan leeyahay aynu fadhiga ka kacno isbedelka inaga keeni karna saasaan isku dhiirigelinayaa aad loo mahadsantihiin guusha waddanna insha Allah way imanaysaa salaamu calaykum baxay waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyahaygii xilligii xisbiyadii hore gudoomiyahaygii aan wada ahay udub in badan soo wada kifaacnay imikana aan wada nahay wadani Saciid Cumar wala tafadal بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa dhammaantiin marka hore waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada soo abaabushay shirkeena sanadlaha ah iyo intii ka soo qayb gashayba rag iyo dumarba hadalku kolley ku noqnoqodkiisu ma wanaagsana dhinac walba waa laga hadlay dad badan oo dambana way hadli doonaan anoo waqtiga ka faa'iidaysanaya waxaan doonayaa inaan in yar un kaga faa'iidaysto xisbiga wadani madaxdeeda gudaha oo in yaroo tala ah bal aan u soo jeediyo waxaad moodaa
maanta xisbiyadani mucaaradka ahaa khaasaar xisbigeena wadani inaanu wax badan madaxda gudaha joogta aanay raadsanayn bilbetan waxaan ka hadlayaa arrinta ah diiwaangelinta oo ah arrin iminka ka socota waddankii xisbiyada mucaaradkii may qaadicin manay sii dayno dadkoodii kumay gubaabin waxaaba la sheegay iminka waxa weeyaanba mid dhinac qura aad moodo inay ka socoto xagga xisbiga kulmiye iyo xagga dawladda oo abaabul ku jira meelaha qaar waxaaba lai sheegayeen baabuur lagu rarayo dadka oo lagu diiwaangelinayo taasna waxaad moodaa inaanay xisbiyadii mucaaradka ah aanay u dareensanayn markaa waxaan odhan lahay bal waxyaabaha inagu xeeran hubsada oo haddii aad markii hore saxeexdeen heshiiskan ah in diiwaangelintii madaniga ahayd socoto dee waa in dadkii la guubaabiyaa oo aan dhinac qulun laga guubaabini dhinaceennina aynu ka guubaabsanaayo dadkii la diiwaangeliya horta intaasaan doonaya inaan kaga faaidaysto mar labaad waan idin salaamaya dadweynihiinan dad guushina waaba dhowday oo 6 bilood iyo waxaan ka badnayn baaba ka haray dadkeena waxaan kula dardaarmaya inaynu isla garab taagno intii qurba jooga looga baahno taasna waxaan u malaynaya waxay noogu soo jeedada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ayaan kollay u filayaa arrimaha caynkaas aan u dhaafay inay ka hadlaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ilaahay baa mahad leh mar labaad waxaan u mahad celinayaa guddiga qabanqaabada ee shirkan iyo goobtan quruxda badan inoo soo abaabushay waxaan halkan ka hambalyaynayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha garabka sharafta leh haweenka ergada inooga timid gobollada sida turkuwe uu hogaaminayay injineer jamaal ismaaciil jamaal cabdilaahi xasan iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga ee halkan fadhiya kolley anaa hadhay looma hadlo hadalka intiisii badneyd waa la yidhi waktiguna waa gabagabo waa inagu idinku soo dheerayn maayo wuxuu maan jecelahay 2 qodob inaan sira dul taago siduu xildhibaanku sheegay horta dhaliisha xukuumadda ku fogaan mayno oo anigu waxaan qabaaba dhaliil inay xukuumaddan la dhaliilaa ugu filan tahay videoiska youtube-ka ku jira oo muujinaya wax kastoo shalay xisbiga kulmiye xaaraan ka ahaan jiray inuu maanta xalaal yahay 2 qodob baan yar taaban siyaasadda arrimaha dibadda waxaynu ognahay waqtigii xukuumaddii riyaalatalada dalka haysay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland halkay maraysay iyo maanta halkay marayso farqiga weyn u dhaxeeya dalku wuxuu lahaa safiirro badan oo ajaanib iyo Somaliland isba isugu jira oo u ololeyn jiray qadiyadda Somaliland wuxuu lahaan jiray saaxiibo badan ku lahaan jiray golayaasha caalamka sida golaha baarlamaanka ee waddanka UK oo kale waxaynu ognahay markii xukuumaddan kulmiye talada dalka la wareegtay in dhammaan la laabay xafiisyo badan oo dibadda ahaa oo xisbigu lahaan jiray waxaa ka mid ahaa safaaraddii Somaliland ku lahaan jirtay waddanka South Africa oo safiirkii xilliga ay noo joogi jiray dhaqaale la'aan awgeed uu markii dambe xilka intuu isaga tegay maanta uu yahay safiirka dowladda South Africa u fadhiya waddanka Eritrea waxa kaliya ee caalamka aynu ka iibino ee aynu ku faani jirnay wuxuu ahaan jiray dimuqraadiyad iyo xorriyatul qowl muddada 4 sano iyo barka ahayd ee kulmiye talada dalka hayay waxaynu ognahay xorriyatul qowlkii sida loogu tuntay oo ay maanta xidhan yihiin saxaafadda rugniyaashii ugu waaweynaa wargeysyo ka mid ah sida haatuf iyo hubaal oo kale waxaynu ognahay intay talada dalka hayeen in la xidhay saxafiyiintii ugu badnaa intii dowlad Somaliland jirtay ee la xidhaa waxaa intaa dheer oo inagu soo kordhay wax la yidhaha 2 garab kulmiye markay talada dalka qabteen masiibadu burcay naga soo bilaabanto ciyaartooyii burca 2 garab horta u kala jabay waxay noogu xigay kulmiye 2 garab u kala jabay waxaad arkaysaa nuurkii saxafiyiinta ee soo joogo isla 2 garab noqday waxaa ku xigtay halkii kaliya hay'adda loo fiyoobay oo sidoo gudoomiyaha dhalinyaradu sheegay ahayd daladii Soomaaliya oo iyada maanta 2 garab u kala fadhida wuxuu baa inoo hadhay oo kaliya ilaahay nagu keenay ee madaxtooyadu 2 garab noqoto madaxweyne ku-xigeenka madaxweynuhu kala hogaamiyaan
dalku wuxuu u baahan yahay cadaalad cadli baa rag doojee wax kaloo dad deeqoo dadka lagaga eed baxo nin u doono heli waa waxa keliya ee qaran lagu badbaadin karaa dowlad lagu dhisi karaa ummad lagu horumarin karaa unity lagu samayn karaa qulubta dadka lagu midayn karaa waa cadaalad hal qodobka koowaad ee wadani xoogga saaraya u ballan qaadaya waa inuu soco cadaaladda dalku dhaqaalay lagu filan waa leeyahay haddii la hagaajiyo aqoonsiga waddadiisi waynu ku jiraa waa gaari doonaa laakiin wax walba waxaa ka horreeya waa cadaalade horta taasaynu xoogga saaraynahay taa aynu ku taageerno xisbigu inuu la yimaado aynu cadaaladda xoogga saarno سلامك بعدي واحد دوني صدق كلمة وخبرنا في غير هذا مدو حنلاقي حكومة ضمان فرنسا مدنا وحن عرنا يا شعب في سومالي لاند مدنا وحنلاقي حزب الإيوب هاي رياشيسة هرت حكومة ضمان ثلاثة هاي خير الله سيو مدبان عرنا لها وحوي عرفت حكومة هذا يا رايح كتر الفضايح أقول لك أنت معناها qofka sii socdo fariixada sii badi marka fariixadii uu bay sii badinaysaa xukuumaddu waana lagu fahmay baan filayaa shacabka waxaan leeyahay 5 sano soo dul qaadanayseen insha Allah taala 5 bilood ee hadayna u dul qaatayaan la isku kiyo dhufan tabcada leedina doonayaan ayaanay insha Allah idinku dhicin markaas shacabka leeyahay xisbiga wadanina waxaan oran lahaa guusha horta waxay ka timaadaa xagga Ilaahay doorashaduna xagga Allah ka timaadaa layda caafimaadku markay imaanaysana bedelka waxaan ku Allah keena waxaan u arkaa xisbigan inuu yahay maanta xisbiga talada wadanka ku guuleysan doona isagana waxaan leeyahay insha Allah taala baartay asharadii hore aynu soo dhiganay waxyaabii ay diideynay iyo dhaliilihii faraha badnaa ee aynu soo aragnay inay 10 u noqoto oo maaragtay wixii dadka Somaliland anfacaya iyo wixii dadka reer Somaliland u cuntama ayuu ku kici doonaa waana sababta xisbiga loo sameeyay marka Ilaahay idinki guusha Allah siiyo doorashadana Allah ku guuleeyo baan leeyahay dadka shacabka taageerayaasha wadanina waxaan oran lahaa sidii horeba loo yiri xisbigu wuxuu u baahan yahay garab iyo gaashaan talo iyo tusaale iyo waliba hanti oo ugu muhiimsan marka qof walowba tawayn wadanahay laakiin aynu aad u ahaana baan leeyahay xisbiga hal isbarbar taago dhaqaalaha la isku barbar taago wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah inuu tahay taladeeda kala ku taray inuu baqay laakiin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhalinyarada eeganka u ahayd 10 maalmood soo qaban qaadinaysay shirkan quruxda badan leh maxkamada quruxda badan leh waxaa kaloo aan soo dhaweynayaa taageerayaasha aad moodo maanta inay isleegiina oo dumarkeen iga badan jiray dhalinyarada maanta waa inaga fiirsan meesha dumarku waa ka badatay aad u mahadsantihiin inkastoo aynan waqtiga ilaalinin haddana maanta waa la isku soo gaadhay ودتكي هروي من أول وين فديان كوي ضايع وفديان ولي وسجينا وأنا أول ما تدي لما أنت ده أنت جد بو أنا وما أنت دليل وحكوا فلان أنت هرا راسه شيء بدون دليل مايو لكن وحن تعبنا يا سنة كاي صودا حني محقبة إيه لانت وهاي قبتي أما يصير هذا نقطة أما هذا نقطة وبالله تبدي سنة كورة والسوشيال جمال ولا يمكن يقول يسوي سنة كان معناتها مرة البحث بأساس كيسة وكدوا لا وحويا كبعين تغير يا شخص والله طريقه تغير دقالها حسب يقوليها لاطرة ولا كوريو يا إلى أنت خلافات كحبناها الحديثة أما حبين عادية هالنقطة أما تغير عادية هالنقطتين إلى خلافات كاس أيها سنة والبا لابد على سنة والبا كيو هرنو تدك مرة دو صوب بدن أيوه هاوشاس وين نقول بدن تايو وين نقول كرر تايو إلى أنت هاد بانو قلاسيا نقول الله خلافات كا يوكب عند دقالها يوكب عند تغير يا شيء ترى
waxaan filayaa waa way loo dhowdahay maadaama la leeyahay ilaahay ha ka dhigee waxaa ka hadhay doorashadii ilaa bisha lixaad sidii aynu ogeyn ama schedule-ku ahaa waxaan leeyahay xubnaha ama taageerayaasha xisbiga wishii way soo dhowdahay hawshayna yaynan ka daalin saddexdaa qodob ka koobnay haddii aan ka gudbo waxaan u gudbayaa qeybta miidiyaha xisbigu qeyb ballaaran oo miidiyaha buu leeyahay ama ha socoto ama ha qorto ama ha hadashee inkastoo walaaladii iga horreeyey ama mas-uuliyiintii iga horreysay ay ka soo hadleen waxa ugu muhiimsanaa sanadka kan aynu soo dhaafnay socdaalkii dheeraa ee muhiimka ahaa ee aylaantu ku gaadhay Helsinki intay isugu timi qaybaheeda kala duwan iyo gobolladu intay yimaadeen la isku waafaqay in dalka gudihiisii la tago oo barnaamij gudaha laga galo ta ugu muhiimsanay taasay ahayd oo aan filayo dhaqaalo fara badan iyo saacado fara badan iyo ayaamo fara badan intuba inay ku baxeen oo aanu guul ka soo hoynay oo aad telefishinada iyo website-yada intaba ka daawanayseen guddoomiyaheenu halkaan usoo nugula xaadnaba dabadeed tegayay oo sida fiican loogu soo dhaweynayay oo dhulku soo dhaweynaysay oo ilaahigu soo dhaweynaysay oo guryu soo dhaweynayeen dadkii markii ay dhaaftay waxaa dhacday in xoolaana lagu qorayay waddani intii aanu wareegaynay dhulka taasi waa qeybta miidiyaha oo u malayn maayo aan laantan ahayn oo ilaa hadda ku dhaqaaqday iyadoo ficil samaynaysa oo qarashkeedii iyadu sidata oo aan dhaqaalaha xisbiga laanta waxba ka qaadanin inay dhaqaaqdo annagoo 4 qofa oo hawshaas soo qabanayna waa guul baan malaynayaa inay weli cid kala qabanin xisbigu wuxuu leeyahay protocol lagu shiro oo ah in bil walba guddidiisa fulintu ay isu timaado haddii aanay jirin wax emergency ah oo markaa la isugu yimaado oo bishaa ka hor dhaca waxaan filayaa markaanu dib isu eegnay ee aanu isqiimaynay sanadkaa inaga tegay 12 bilood waxaa noo raacay 7 jeer oo kale oo aanu shir emergency qabanay oo uu ka mid ahaa kii aanu ku go-aaninay in la tago waddankii annagoo soconna 12 bilood 7 maalmood ee aanu fadhiisanay ayaa ku beegnay 19 shir oo kale kaana waanu qabsanay oo ah mid la isugu yimi aan ahayn ka goobooska ee odayaashu xisbiga ee mustabeedkiisa oo qaarkood igala joogaan halkan ay iyagu galeen waxaanu samaynay oo kale sanadkan ina soo dhaafay 4 jeer oo uu guddoomiyuhu inoo yimi oo xaflada loo qabtay oo la soo dhaweeyey oo la sabootiyey oo dadweynaha Somaliland ee dalkan degan meesha doonaan baa ka joogaan ay ka soo qayb galeen khudbadihiisii su'aalo wanaagsan oo muhiim ah iyo jawaabo shaafiin halkii laga helay waxa had iyo jeer muhiim ah haddaynu gurbajoogga nahay gurbajoog baa lagu tilmaamaaye qofka taageeraha ee waddanka dowladdiisa jooga importantka ugu taageeraya xisbiga waxa weeyaan laba shay labadaba inuu moral iyo material mood iyo nool labadaba inuu ku taageero oo haddii uu tegayo dalka marka doorashadu dhacaysana uu codkiisa la tago inta ka horeysana oo xisbiga maal wixii uu hayo ee looga baahdo uu ku taageero xisbigu siyaasad buu ka leeyahay laantiisani ah in qof oo xubina oo xisbiga taageerta inay bixiso bishii 20 euro marxalado xisbigu soo maray taageerayaashiisu maalin bay ka badnay waxaanu ku bulanay 7 qof maantana wuxuu marayaa alxamdulillahi rabbil caalamiin 5 qof ayuu taageerayaasha xisbiga maalka bixiya dad badan oo taageero oo moral u taageera tiro ciidaha ka badan dadka moral u taageera maalinba qaar baa material ahaan u taageero dhaqaalaha kusoo siyaadiya waana kobcidda ilaa hadda uu marayee 5 qof oo lacagta bixiya ay gaareen dadka moral inoo taageerana in badan halkan fadhiya way joogaan waxaanu rajaynaynaa sanadahan ama bilahan soo socda ama ayaamahan soo socda iyaga laftooduna inay ku taageeraan dhaqaalaha waxaa jira dhaqaale emergency oo xisbigu gudaha ka soo dalbado oo laga yaabo sanadkii 2 jeer ama 3 jeer inay dhacaan oo dheeraad ku ah
subscription kaa la bixiye bilaha ah sanadkiina soo dhaafay dabeeqadiisii ama bilowgii sanadkiina dhaafay waxaa xisbigu soo dalbaday lacag 20,000 oo dollar 20,000 oo euro ah laantani waxay ku bixisay lacagtaa la soo dalbaday iyadoo aan cid kale wala qayshanin oo ay fiilaana tahay dadka Somaliland dariskii meesha ay ku yar yihiin marka la sii eegana xisbiga qura ee ka jira uu yahay xisbiga wadani ee dhaqdhaqaaq ka sameeya dadka waddankeena jooga waynu ognahay dad cilmi leh oo caqli leh oo laga yaabo inay rag iyo dumar bay naga wanaagsan yihiin ayaa ka buuxo la wada socnaa laakiin baahi dhaqaale taagan wixii dhacay laga faa'iideystaa baa wanaagsan waxaa dhacday doorashooyinkiina soo maray inankii for example ay udub iyo kulmiye iyo nimanka dhalinyarada ahaa ay dirteen especially xisbigii loola jiray dhacay udub iyo nimadii ay dirteen in la iibsaday oo la yidhahday waxba kaamay gelin waxaa halkan lagu guray $400 qaado iskaga tago kan ku biiri waxaa halkan dusha kaga qoba kulmiye ahaa way uu ka dhaqaalo badnaa labada xisbiya kale si aynu uga hortagno taasi inaanay dhicin waxaanu bilownay qof aan la iibsan karin oo dhaqaalihiisa sita oo gaarigiisa karaysanaya oo goobtii lagu qola tegaya oo la odhan karin $300 qaada isagu intuu kun siiyo odhanaya adigu kun qaado labada sanduuq ba iskaga tago kun ka qaada adigu si aynu taa u helno kolley wuu inoo xidhan yahay shirku aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haweenka sharafta badan ee noo soo abaabulay keega ugu mahadcelinayna maxay lahay khayr hagaajisaay walaaqsamula dhalankeenu nabad ku seexday umaha dhaafaha wanaagga dhisaha wixii dhacayaba dhakiisa hayaha wadaniga dhabta allow dhow umaha dhaafaha wanaagga dhisaha wixii dhacayaba dhakiisa hayaha wadaniga dhabta